السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديا كسر دوّاد وروح عاوذين هيني ورك Soomaalida kuwa caalamka rabshado iyo mudaharaadyo ka socda Djibouti iyo Mareykanka oo ay rabshado ka socdaan laga soo horjeedo ICE Greenland oo diiday codsigii Mareykanka ku soo dhawaada wararkii oo fidsan dibadbaxyo ka socda Minneapolis duqa magaalada ayaa ka digay in barnaamijyada lagu muujinayo rabshado isagoo ka codsaday dadka inay nabadgelyada ilaashadaan kadib markii sarkaal ka tirsan hay'adda ICE ay toogteen darawal sidoo kale Trump oo amar fulin saxeexay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxeexay amar fulin ah oo ka hortagaya in maxkamadaha ama deymaha looga wareejiyo dakhliga shidaalka Venezuela ee ku jira akoonka dawladda Mareykanka sidoo kale Greenland oo diiday codsigii Trump hogaamiyaasha siyaasadda ee Greenland waxay si adag u diideen inay Mareykanka gacanta u geliyaan jasiiradda iyagoo ku adkaystay in go'aankaasi uu yahay mid u gaara shacabka Greenland sidoo kale Holland Netherlands xisbiga siyaasadda ee Netherlands ayaa ku heshiiyay inay ka wada shaqeeyaan saameynta xukuumadda yar ee cusub kadib doorashooyin iyo wada hadallo siyaasadeed oo socday toddobaadyadii la soo dhaafay sidoo kale wararka Afrika ayaynu galeynaa imika Djibouti waxaa jira kacdoono iyo banaanbaxyo kooban oo ka dhacay Djibouti City kuwaas oo la xidhiidha cabashooyin siyaasadeed iyo doorashada soo socota shacabku waxay doonayaan inay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay iska bedelaan madax kale sidoo kale sheekh weyn ee Sheekh Umal oo ka hadlay aqoonsiga la siiyay Somaliland isagoo jooga dal gaalo oo ay maamulaan dad aan bilaadiin ayuu arrintaa ka hadlay waxaana u jawaabay culimadii Somaliland balleer dhageysta jawaabtii iyo Sheekh Umal oo hadlaya markii hadda lagu dhawaaqay heshiiska lagu dhawaaqay oo la yiri Israa'iil baan ictiraafta waxyaabo badan oo dhibaatooyin ka dhasho degdeg ah sharciyada khilaafsan dhaqanka khilaafsan dadnimadii Soomaalida khilaafsan diintii khilaafsan maxaa ka mid ah muwaalaat al-kufaar yahuud oo ilaahay inoo sheegay in la xigsado laga wada dhigto kalgacayl loo muujiyo iyadana xigta la yiraahdo Soomaaliyada naga xigta la yiraahdo ihtifaalaad iyo damaashaad iyo dabaaldeg loo sameeyo shacaaraadkeedii iyo calankeedii iyo calaamaadkeedii in la weyno loo lulo in la dhudhunkado ictiraaf ummadan inay hesho boqolkiiba boqol baan u taageersanay ummadan ictiraaf way u baahantay muddada intaa leeg inay xanibnaato uma baahna aad baynu ugu baahanay xajkeeni cumradeeni caafimaadkeeni waxbarashadeen wixiiba way ku xidhay dawladda koonfur ka dhisan dhammaan gaala noocoodii oo dhani way la joogaan madow iyo caddaan xalanay uga buuxaan iyagaaba inta badan oo arrimiya iyagaa gacanta ku haya haddana kuwaa eegi maayaane gaalada kale eegayaan qolooyinkii koonfur joogay iyo dawladaha kalena iyaguna safkiisay soo galeen iyagoo amar dawladeed qabo cid ku raali gelinaya waa ka hortaaganay waa ka soo horjeednaa habaar mudaharaad aayado jihaad taageerma ku dhow lagu jihaado sidoo kale maanta waxa ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya arrin aad u weyn oo dadka iyo shacabka Muqdisho argagax gelisay iyo golihii baarlamaankaba gabadh afduuban ayaa soo gashay oo aan la garanayn ka bacdi nin kamida baarlamaanka ayaa ku yiri marada iska qaadi mask ka bacdi maxaa dhacay waa tan la yar daawada iyadoo falanqeynayo saaxiibkeen isagoo xildhibaanada la hadlaayo gabadha meesha fadhido waa ka shakiyayba gudoomiye ku xigeenka Sacdiib ahaba nin waaye ama qof wax sameey rabo waaye ala kulli xaal baarlamaanka ninka uu cabsadayba ila daawo kadib ku sharxi doona inta fadhiso inay gudoomiyeen Sacdiib ay tahay in kala shakiya ay jira intaas waxaa xeer hoosaadka sixitaankiisa ay iga tahay
waayo nidaamka xildhibaankaas u lebisto rag iyo haweenba xeer hoosaadkay noogu qoran tahay in la caddeeyo qofka almiin hadduu hargabsan yahay xataa hadduu xeranayo afka inuu marka hore istuso dadka waaba la kala shakiyey oo caadi ah baarlamaan sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay dhawaanadanba ku eedeynaysaa Somaliland inay xunta in la galo dowlad shacab islaam dishay in xiriir laga galo aqoonsi laga qaato laakiin iyadu maanta waxay heshiis la gashay dowlad leysay 110 milyan oo muslimiina wala yardaawada waxan shaaciye inoo iftiiminay Soomaaliya dhawaan waxa inoo sheegtay in ay xun tahay in heshiis lala galo dowladda Israa'iil sida madaxda dowladda Soomaaliya inoo sheegeen waxa ay ku sheegeen Israa'iil inay tahay wadan xasuuq geystay walaalo Falastiiniyiinana xasuuqay haddaba dowladda federaalka Soomaaliya waxay heshiis la saxiixatay Myanmar oo ayagana xasuuqay in ka badan 24,000 oo muslimiin wadankaasi u dhashay ah inta u dhaxaysay Agost ilaa iyo September 2017 militariga Myanmar waxa ay dileen 6,700 oo ruux oo muslimiin ah sida UN ka qaramada midoobay ay shaaca ka qaaday 730 kamid ah dadkaasi la xasuuqay oo muslimiinta ahaa waxay ahaayeen caruur haddaba waxaa jiray baaritaano madax bannaan oo la sameeyay oo hay'ado kale ay sameeyeen baaritaanadaasi waxaa lagu helay in 24,000 oo muslimiin ah lagu dilay dalkaasi Myanmar waxaana dilay militariga dalka Myanmar sida lagu helay baaritaanadaasi madax bannaan wararka qaar waxay sheegayaan in tirada intaasi ay ka badan karto maadaama aan la diiwaan gelin dadka la xasuuqay waxaana dhibaatooyinkaasi geysanayay waa militariga Myanmar oo xasuuq u geysanayay muslimiinta Rohingya sidoo kale 1.5 milyan oo ruux oo muslimiinta dalkaasi ayaa la barakiciyay waxaana barakiciyay militariga dalkaasi haddaba dowladda federaalka Soomaaliya hadiiba ay diidayso in heshiis lala galo wadan yahuud ah muslimiinta xasuuqa maxay tahay sababta ay heshiis ula galeen wadanka Myanmar oo markaasi lagu eedeynayo in ay xasuuqeen 24,000 oo muslimiin sidoo kale waxa xalay ka dhacay Muqdisho arrin la yaab leh bal waa taleer daawada والله عجيب هدوب نينكاس indhayarka oo maanta uu nagu dhimanin alxamdulillah haduuba nagu dhimanin alxamdulillah maxay xaajada si xumaani lahayd ninkaasita foreign affairs ka indhayarka ka imaaday from wadankiisa in la maqlo argagixiso Soomaaliya dhaxdeeda Muqdisho ku dhex dishay taasaan uga darnaan lahayd maanta waan fakanay halahan ceebta ahmaad aragtay waan u dul qaadan karnaa laakiin hadduu indhayarkaasito ee arrintaanita maad aragtay markay dhacaysa uga joogin waa inaan ilaahay ku xamdinaa caybay tacaala wadanka sumcadiisa waa u dhammaatay marka see warshado loogu dhisi doonaa see maxaa la dhahayay wadana iyo investment loo gelin doonaa wadanka Soomaaliya la dhahayo because wadan walba muxuu ka baqayaa in arrintan camal ay ku dhacdo ayagoo jidad noo dhisayo bum in la qarxiyo ayagoo warshado noo dhisayo argagixisay ay imaanto marka sirdoonkii aawe wadanka sirdoon ma lihin dad dhar cad oo askar oo dariiqyada soconayo ma lihin dad cimaaradaha korkooda saaran la saari karo oo haddii ilaalinayo dhulka ma lihin oo biliiskii aawe mise waa loogu talagalay waxaan daawadayaal
وروح أنو ذكاهيني عالم كوان لقين تاتني أنت ندبو كل بينو حبيب وناكسن لايك تيا سبسكرايبته ينوقع عوي وعصبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.